بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا ورئيسي قارة والله لناي مدحوينها سوماليلان أحمد محمد محمود سيلانيو مدن مدحوينه كسو دو مركه هوري تلفزيون يونيفرسال waa sanad waan ku dhawaay waxaa la soo gabagabeeyay shirkii dowladda federaalka iyo Somaliland maxaa Soomaaliya ka aaminsan tahay Soomaaliya waa dal aanu darisnahay in shirkii Turkiga looga hadlayayna ma ahayn shir in Soomaaliya Somaliland lagu heshiisiinay ama dib la isugu soo celinayay wuxuu ahaa shir danaha labada dal ay leeyihiin looga wada hadlayay mudan madaxweyne waxaa la sheegay maalintii wax inaad talada ku leedahay laakiin habeenkii qoyskaaga ayaa maamulo maxaa ka jira taasi waa iska hadal tiro bini aadmi aniguna fiidkii baan seexdaa haddii qoyskaygu ay maamulaan waxay ka mid yihiin qaranka Somaliland oo wax dhibaa ma laha mashaariicda wadooyinka waa la dardar galiyay mudan madaxweyne ma madaxtooyada la hoos keenay in wadooyinku waxa weeyaan ilaha dhaqaaluhu ay ka yimaadaan haddii ay madaxtooyada soo galaanna in wax dhibaato ah ma lahan in wasiirka madaxtooyaduna waa nin shaqo badan howlkal ah in mudanna in haddii hoos yimaadaan wax dhibaato ah ma lahan siyaasiyiintu xafiltan siyaasadeed ayaa ka dhaxeeya siilaan ahaan siyaasigee ugu nacab tahay anigu siiray ahaan waa Faysal Cali Waraabe in kan gudoomiyaha baarlamaanka ah xisbiga wadana madaxda ka ahna isagana waa lamid tiyaatarkii golaha fanka waxaad ku tirtirtay dikreeto madaxweyne waxaadna siisay salaadiinta fanka miyaad nacab tahay anigu fanaaniinta ma nacbi laakiin fanaaniinta iyo odayaal dhaqameedyaduba waa hadal ku nool sidaa darteed ayaan golihii martida madadaalada waxaan ku qanciyay odayaal dhaqameedyadii fanaaniintuna guryahooday joogaan madaxweyne waxaad u muuqataa nin carab badan markaad carooto maxaad dareentaa taa dadku in badan bay isweydiiyaan laakiin anigu siiray ahaan haddaan caroodo cidna ma garto Puntland waxaa loo doortay Cabduuli Gaas oo horay ra'iisul wasaare uga ahaa Soomaaliya mana u hambalyeeynin maxaad ku qoonsatay anigu Cabdullaahi Yuusuf ayaan ogaa ma cid kale la doortay haddii wax codsan lagu dhihi lahaa maxaa codsan lahayd muddo dhowr iyo 20 sano ah bay qaadatay gooni isutaaga Somaliland aqoonsigeeda in badan baana lagu daalay arrintaas dadka Somalilandna dad qancaya ma ahan balse anigu waxaan codsan lahaa in ummadda Somaliland la qanciyo madaxweyne fanka waa jeclaa tiri golihii murtidana waa xirto tiyaatarka fanaaniinta aqaladooda ha joogaanna waa tiri fanka aad jeceshahay waa nuucee fanka aan jeclahay waxa uu yahay sida xeeskan dalkayga nimca fadhida kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ku wareysanaynay barnaamijkeena Faaliyaha